السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kasta joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay walaac xoogan xilligan ka muujinayaan ciidamada amniga ee isku aruursanaya gobolka Gado ee Jubbaland. Soomaaliya iyo isku dhacyadii labadii bisha Maarso ka dhacday agaarka balad xaawo kuwaas oo sababay barakac dad rayid iyo khasaarooyin. Waxaan si degdeg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada is haya inay is xakameeyaan ayna yareeyaan ciidamada amniga ee ku sugan Gado ayna ka fogaadaan fal kasta oo ka dhici kara ama keeni kara rabshado. Waxaan ogsoonahay muhiimadda ay leedahay xasiloonida iyo iskaashiga wanaagsan ee ka dhaxeeya Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya oo ku dhex mara deegaanadaasi xuduud ahaan ay wadaagaan halka ay ka wada dhaxeeyaan dana amni. waxaan soo dhaweynaynaa xiriirkii 5 Maarso dhex maray labada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. waxaan dhiirigelinaynaa madaxda inay sii wadaan daminta xiisadaha iskaashiga amniga ee xuduudaha iyo in la sameeyo guddi wada jir ah oo wax ka qabta arrimaha diblomaasiyadda, ganacsiga iyo sida madaxduba ay isku afgarteen. saaxiibada waxay u arkaan wada hadalka dhex maray madaxda inay tahay talaabo lagama maarmaan ah. waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda uu leeyahay inuu sii socdo xiriir toos ah oo dhex mara Soomaaliya iyo Kenya. saaxiibada waxay urur goboleedka IGAD uga mahadceliyeen xiriirka iyo dadaalada dhexdhexaadinta ee uu sameeyay. waxaan ku boorinaynaa in wada hadalkan uu sii socdo ilaa iyo inta ay xal waara laga gaarayo si muddada dheer loo helo xasilooni loona xaqiijiyo amniga gobolada xuduudaha ku yaala iyo kan Jubbaland. saaxiibadu waxay ku boorinayaan madaxda Jubbaland in loo sii ambaqaado dagaalka ka dhanka ah dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. waxaan ku baaqaynaa in shakhsi kasta ee lagu eedeeyay dambiyo ama xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda insaanka in la soo xiro oo lala tiigsado sharciga iyadoo la raacayo sareynta sharciga. waxaan hoosta ka xariiqaynaa in iskaashiga buuxo wada hadal dhex mara dowladda federaalka iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ay yihiin lagama maarmaan loona baahan yahay inay dhacaan si ugu dhaqsiyaha badan si loola dagaalamo dagaalyahanada Al-Shabaab, loo xaliyo arrimaha ay isku hayaan, loogana guulgaaro arrimaha kale ee hortabinta leh ee qaranku iyo sida ugu gungaarista faa'iidooyinka laga helayo cafinta deymaha iyo qabashada doorashooyin qaran oo waqtigooda qabsoomo. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Denmark, Itoobiya, midowga Yurub, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Talyaaniga, Sweden, boqortooyada midowday Ingiriiska, Mareykanka iyo qaramada midooba ayaa si toos ah warqadan si wada jir ah u soo wada saaray.